halkaas oo ku bartay luqadda Ruushka 1985 ilaa 1991 muddadaas waxa uu sheekhu ka qalin jabiyay jaamacad la dhihi jiray magaceeda Vinnytsia Medical Institute oo ku taala dalka Ukraine oo caafimaad ku baranayay 1992 ilaa 1994 wuxuu sheekhu koorso u tagay ka qaatay jaamacadda la dhihi jiray Uppsala Folk University oo ku taala dalka Sweden 1995 ilaa 1996 wuxuu oday ka noqday sheekhu shirkad lagu magacaabi jiray Sanema AB 1997 ilaa waqtigu markuu ahaa 1997 wuxuu sheekhu kooras aqoonta dhaqaalaha uu ka qaatay macnaa kulliyad ka hadlaysay maartay dhaqaalaha iyo sida maartay dhaqaalaha loo sameeyo maartay ayuu sheekhu wuxuu ka qaatay jaamacad ayadana magaceeda macad la yiraahdo magaciisa EIR baa magaciisa oo ku yaala Stockholm halka ayuu sheekhu ilaa 1988 aqoontiisa ayuu ku sii kororsaday wuxuu qaadanayay sheekhu aqoon la xiriirta qalliinka carruurta waa isla caafimaadkii weeye qalliinka carruurta aqoon la xiriirta ayuu qaadanayay sheekhu wuxuu ka qayb galay sheekhu oo ku qaadan jiray halka jaamacad la yiraahdo magaceeda iyadana Vinnytsia Medical Institute oo ku taala wadanka la yiraahdo Belarusia sheekhu 1999 wuxuu koorso ayadana maartay koorso ka qaatay Stockholm Folk Institute ayadana oo caafimaadka qusaysay 2000 ilaa 2003 wuxuu oday ka noqday sheekhu barnaamij lagu baarayay dhibaatada uu qaadku ku hayo bulshada reer Puntland macna bulshada degan Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso 1996 ilaa 1970 macna 1900 macna waxa ka wada 2006 ilaa 2007 wuxuu koorso caafimaad oo kala sheekhu ka qaatay wadanka Masar jaamacad ku taal oo magaceeda la yiraahdo Medical Faculty of Cairo University halka ayuu sheekhu ka qaatay koorso kale oo caafimaadka oo halka ku soo dhameystirtay sheekhu wuxuu ku hadlaa 5 luqadood buu ku hadlaa luqadaha ku hadlaa waxa kamid ah Ingiriiska English iyo Ruush Somali iyo Arabic iyo luqadda Swedishka shantaas luqadood ayuu sheekhu ku hadlaa sheekhu wuxuu hadda inooga yimid Soomaaliya mudiir ka soo maqan yahay wuxuu mudiir ka yahay jaamacadda la yiraahdo magaceeda bariga Afrika East Africa University qaybteeda caafimaadka macallinna uu ka yahay mudiirna uu ka yahay intaas qaybta oo isbitaalka jaamacadda halka ayuu wuxuu ka yahay sheekhu macallin ka yahay mudiirna uu ka yahay marka muxaadaradeena waxa uu inoogu qoran yahayna insha Allah taala halkan ka jeedin doono halkan markuu dhameeyana wuxuu gali doonaa maxaan ku raadayay midkan kale room number 1 ayuu gali doonaa insha Allah taala waxay tahay cinwaankeedu dib u eegista taariikhda Soomaaliya sheekhu saas uu yahay intaan idin sheegay maartay caafimaadka waxa uu dheer inuu yahay sheekhu qoraa weeye waa qoraa taariikhda Soomaalida iyo taariikhda muslimka iyo taariikhda caalamka oo dhan wax ka qoray oo buugaag leh marka sheekhan ku soo dhaweynaa insha Allah taala تفضل شيخ صادق محمد أحمد صادق يانو السلام عليكم عليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ولا ريال سيدا مغليسين محاضرة يدا مانتا وحوية في ركوبان تاريخ دا الصومالية تاريخ دا وحي كمتاي وحيابها دادك اسكحرة ومن لماذا دا أدكية
oo inay isku dad yihiin tilmaama muujinaya xididka dheer oo ay ku taagan yihiin u adkaynaya laakiin haddii xididka la waayo dadku waa kala firdhanaya sida nagu dhaco kale haddaba taariikhda Soomaaliya waxaan ku soo talagalay 200 sano ugu dambeeyay inaanu dul marro waqtigiina waa u yar yahay taariikh hodan ah oo aad iyo aad u qiimo badan ayaa ku jirta oo qofka Soomaaliga loo baahan yahay inuu wax badan ka ogaado jiilasha dambena aanu u gudbino si ay uga talaabsadaan godadka taariikheed ee hor yaalla 200 sano ugu dambeeyay 1800 ilaa 1900 waa qarni 1900 ilaa 2000 waa qarni labadaas qarni bulshada Soomaaliyeed ee ku nool geeska Afrika ma soo marin 10 sano oo xiriir ah oo nabad ah 10 sano oo xiriir ah oo nabad ku sugnaayeen ma soo marin waa wax aad iyo aad runtii looga argagaxo dad sida u tira yar misana shidada iyo imtixaanka inta la eg laba qarni ay ku socotay waanu dul maraynaa taariikhdaas ma guda galayno waqti ma hayno laakiin canaawinta waaweyn oo ay taariikhdu leedahay baanu ku joogsanaynaa cinwaanka ugu horeeya qarnigii 19aad qarnigii 19aad 1800 waxa ay inoo bilaabatay iyada oo Soomaalidu ay ku sugan yihiin dhaqankoodii reer miyiga ahaa xoolo raacatada ahaa hayaanka iyo geediga uu ahaa waxyaabaha asalka u ah noloshooda dhaqan dhaqaale isku xiraanshaha beeluhuna ay ahaayeen asaaska saldhigga noloshooda hidda siyaasadeed Axmed Guray imaaradii odaga ka ahaa burburkeedii marka iyada waxa laga joogay 250 sano dhaawicii ka soo gaaray Soomaalida halkaas waa ay ka soo kabteen xilli waxay ahaayeen ay u hana qaadeen imaarado dhowra xilliga isaga ah imaaradaha ana qaaday waxa kamid ahaa imaaradii reerka hartiga ahaa oo ku dambeysay gobolka Bari imaaradii reerka Ajuuraan ee gobolada dhexe ka jirtay imaaradii reerka Galadiga ee koonfurta ka jirtay koonfurta wabiga Shabeelle dhaqdhaqaaq uu waday wiilwaal oo galbeedka Soomaaliya ka socday afartaas urur baa la tilmaami karaa markii 1800 oo qarnigaas bilowday Soomaalidu imaaradahaas bay lahaayeen mid waliba waxbay ku hana qaaday tii wiilwaal waxay ku hana qaaday dagaal joogto ah wuxuu ururiyay beelihii absame iyo beela kaleento oo Soomaalidii la deganaa ahaa gariga kamid ahaa beelaha isaaqa qaar kamid ah ku jiray adigu wuxuu dagaal colaada ku qaaday oromadii la deriska ahayd dadka Soomaalida sidaanu ognahay waa dad xoolo dhaqataa taariikhdu waxay sheegtaa wax la yiraahdo the great waves of Somali expansion hirarkii waaweynaa oo Soomaalidu ay ku dhul fidsanayeen Soomaalidu ma ahayn dad dhul fidsanaya waxay ahaayeen xuduudo ma jirin dad xoolahooda daaq u raadinaya xaqna waa u leeyihiin meeshii roob ku doo inay xoolo geystaan waayo dhulka Ilaah baa leh qofkii xoolo leh hadduu meesha roob ku doo qof dhihi kara joog daaqi meyside waa gardarro weey markay meel tagaan dadkii la deriska qowmiyaadkii la deriska colaad baa dhex mari jiray colaada iyada Soomaalidu cunsurka Soomaaliga xilligaas cunsur firfircoon buu noqday wuxuu ku guuleystay marka qowmiyaadkii la diriray inuu ka adkaado sidaas waxa kutubta taariikhda loogu qoray hirarkii Soomaalidu ay ku dhul fidsanayeen la cadaalad ma aha in la dhaho Soomaalidu waa dhul fidsanayeen sida maaragtay aragtidaydu ay tahay imaaradda wiilwaal dagaalkaas ku caan baxday imaaradii Ajuuraan waxay ku caan baxday farsamo ceelal aad u dhaadheer oo ilaa hadda dhulalka ay ka sameeyeen laga adeegto baa jira farsamadoodii raadkaas ka haray imaaradii bari ka jidhay Majertinya
imaaradda iyadaana waxay ku caanbaxday ganacsi waxaa jiray Boortaqiiskiiba waxay soo gaareen badaha badweynta India ganacsigii dhaqdhaqaaqii badda oo carabtu ay dominationka ku haysteen xilliga wixii ka horeeyay waa la jabiyay waxa yimid doonyihii reer Yurub taa iyada waxay keentay dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee deegaanka inuu aad isu bedelo fursad bay markaa u heleen inay la xiriiraan degmooyinkii ay ka jireen saldhigyada dhaqdhaqaaqa ganacsiga taa iyada waxay kor u qaaday hantidoodii iyo dhaqaalahoodii imaaradii reerka begediga iyaguna waxay ku hormareen ganacsi iyo beero dhul webiya oo barwaaqo bay deganaayeen beero waaweyn bay sameeyeen waxay u dhaxeeyeen carabtii deganayd magaalooyinka xeebaha badweynta India koonfur Soomaaliya ku yaal carabtaas iyo gudaha Soomaaliya dadkii deganaa gudaha wixii laga keenayay iyagay soo marayeen carabtay gaarsiinayeen carabtana dibadda doonyaha u dhoofinayeen wixii doonyaha lagu keenana iyaga qaadayay iyaga gudaha gaarsiinayay saldanad xoog weyn bay noqotay wajigaasu dalku lahaa qarniga markuu bilowmay waxyaabaha jiray oo la xuso waxa kamid ah saddex dhaqdhaqaaq oo diiniya oo ay saddex nin oo culimo kala hogaaminayeen nin wuxuu ahaa Sheekh Ibrahim Hassan Yabarow nin reer daafeeda buu ahaa walnaweyna wuxuu wax ka soo bartay qarnigii 1796 buu dalku soo laabtay Makka Ahmed ibn Idris wadaadka Allah oo dariiqada Ahmadiyada odaga ka abu wax ka soo bartay diin nadiifa oo barax tiran buu la soo laabtay wuxuu dadka saldhigu wuxuu ka dhigtay degmada Baardheere wuxuu dadka gabdhaha fari jiray inay xijaabtaan wuxuu dadka ka waanin jiray ciyaaraha dhaqanka loo lahaa oo ikhtilaadka faraha badan ku jiray wuxuu fari jiray in waajibaadka diiniga la ogo sheekhaas dhaqdhaqaaqiisi waxa isna jiray sheekh la yiraahdo Sheekh Nuur Xuseen Baali Sheekh Nuur reer Markabo ahaa isaga dacwadiisi gudaha dhulka gudaha ilaa Sidaamo oo ku aasan yahay hadda dirida Sheekh Xuseen buu maaragtay dacwadiisi gaarsiiyay dadkaas Oromada khaasatan reerka Caruusha buu la degay afkoodii buu bartay suugaan fara badan buu u tiriyay markuu diintii ku kari waayay wuxuu suugaan iyo gabayo wuxuu tiriyay diini ah oo ilaa hadda ay haystaan qabrigiisa ziyaartaan 1 milyan oo qof baa isugu yimaada ka badan waliba xilliga sanadka ay xusaan waxa isna jiray Sheekh Ali Abdurrahman Fiqi Khayre ayaa isagana jiray isagana ka soo laabtay khaliijka dhaqdhaqaaq xir guuraysa mobile buu lahaa awrba u raraa min Djibouti ilaa koonfur ayuu sheekhaas socday raad fara badan ayuu dacwada ku yeeshay dhaqdhaqaaqyada diiniga ee la xuso xilliga jiray saddexdan nin dhaqdhaqaaqoodii baa u weynaa mid walbana taariikh buu leeyahay hadda waqti aan guda galo ma hayno qarniga bilowgiisii qabaa'ilkii Soomaalida ahaa waxay bilaabeen inay qax fara badan sameeyaan qaxa isaga saddex wax baa u sababaha mid wuxuu ahaa colaad wala dagaalamaya qola dagaalkii ka soo tegaysa marka la soo riixaya sabab labaad waxay ahayd abaaro xoog badan baa dhacay abaarihii iyaga ahaana qol waa la soo guuraya sabab saddexaad baa jira waxay ahayd kacdoomo maamulo jiray oo lagu kacay saddexda arrinba waxay demografiya isbedel demografiga ku keentay deegaanadii Soomaalida kutubta taariikhda waxa ku xusan reerka beelaha dir reerka uga qayb galay hayaankaas waa reerka Biyamaal oo sida xusan ka soo qaxay area-da Harar iyo Hargeysa dhul u dhaxeeyay ay deganaayeen waxa soo qixiyay waxay ahayd reer kamida reerihii Soomaaliyeed bay direen in laga gardaraabay tirsanayeen qabaa'ilkii meelaha la deganaa waxay waa ay ka exdeen gar bay ka tirsadeen
guddoon bay ku soo baxeen gabar kama harin say u dhammaayeen waa soo qaxeen waxay soo degeen webiga Shabeelle koonfurtiisa reerka la yiraahdo Mareexaan iyagu geday soo abaareen beela kamida oo soo qaxay geday tageen niman la yiraahdo reer Booran la yiraahdo deganaa waa isku laayeen dagaal xun baa dhex maray calaayi xaal sidaasay reerka halka ku degeen reerka la yiraahdo Xawaadle waxay ka yimaadeen gobolka Mudug Hiiraan bay soo degeen qolooyin Booran ah Oromaa ayay halka kula dagaalameen reerka la yiraahdo Abgaal imaarad ka jidhay 400 sano magaalada Xamar oo la yiraahdo imaaradii Caailatul Mansuur reer Aala Mansuur bay la dagaalameen nin Yacquub la dhaho baa horkacayay dulmi fara badan bay ka tirsanayeen imaaradda halkaas ku baabaaday Yacquub baa la wareegay magaaladii Xamar 14 sano ka talinay beela kamida beelaha absame waa ay soo qaxeen iyagana koonfur bay soo aadeen haddii alla ku roon yahay beelaha harti beela kamida iyagana sidoo kale ganacsi bay Zanzibar la lahaayeen xagga badda ayay ka soo qaxeen waxay soo galeen dhulka Jubbada Hoose marka waxa ka jiray boqortooyo la yiraahdo Shunguwaya boqortooyada iyada ah xilli ay hana qaaday oo ay u diyaar garowday inay dhul fidsato bay ahayd dhul fidsideedii iyo dadkan hayaamayay baa ishelay dagaalo taariikhda galay oo loo yaqaan dagaalkii Ajida oo Soomaali beelihii Soomaalida ah oo dhana iyo reerkii Shunguwaya oo dhana baa halka ka dhacay dagaaladaas Soomaalidu waxay u yaqaaneen dagaalkii Ajida waa la wada socday nimanka Soomaalida ciidamadooda hogaaminayana waxay ahaayeen beelaha Tunnida calaayi xaal hayaankaas isna ku dheeraan meena intaasan kaga tegaynaa qarnigaas waxa kale oo bilowmay bartamihiisii sahamadii reer Yurub maadaama doonyihii iyo ganacsiga uu ku soo batay meesha waxay degeen Cadan 1938 Cadan bay Ingiriiskii waxay ka dhigteen saldhig ay ka qaataan doonyihiisa aadaya Far East iyo Hindiya iyo meel ay ku sii nastaan shidaalka ka qaataan raashinka ka qaataan wixii sahayay u baahan yihiin ka qaataan Cadan marka waxay noqotay meel camiran waxa dhacday badweynta Hindiya iyo badda cas meesha iska galaan hirar waaweyn baa ka ah doonyuha waa tabar yaraayeen waxay ku soo dhawaan jireen xeebta markay soo dhawaadaan dadka Soomaalida dhalinyarada badana waa qafaalan jireen qaab burcad badeed oo kala 1905 markii uu horeysay Ingiriiska uu Soomaaliya damco ama xiiseeyo markaas ay ahayd doon la yiraahdo Maryan yaa waxa lagu afduubtay Berbera dadkii la socdana waa la laayay hantidiina waa la dhacay isagoo doonta daba socda waa markii uu horeysay ay yimaadaan Soomaaliya 1925 Bernard nin la dhaho waa qabaa'ilkii meesha deganaa la saxiixday in amaan uu ka helo kow iyo inay magdhow siiyaan haddii kale waa ku soo duulaya iyagayna waa ogolaadeen markaas waxa bilaabatay in Soomaaliya la xiiseeyo xiisihii isaga hadba meel buu marayay wuxuu ku dambeeyay markii la furay kanaal Suez horta qarniga bilowgiisii waxa kale oo soo guuray saldanadii Ammaan ninkii suldaanka ah wuxuu soo degay Zanzibar isagoo daba socda ganacsiga xoogga leh Afrika uga socday gaar ahaan xubnaha duurjoogta iyo iibsiga bani aadanka dadkii adoomada la dhahay dadka Afrikaanka nimanka ka qabiilada lacag siiyaan ama wax dhalaalaya waxay u soo ururiyaan wiilasha iyo gabdhaha dhalinyarada ganacsi xoog leh halka uga furaa ganacsigii buu soo dhawaaday saldanadiisii intuu soo raray Zanzibar markuu soo raray wuxuu la xiriiray xeebihii koonfurta ku yiil ee Soomaaliya Xamar Baraawe Kismaayo Marka kulli wuxuu geystay rag mas'uul uga ah Soomaalida wuxuu ugu sheekeeyay nabiga kaleey salaam duriyadiisii baan ahay nin islaam aan ahay maadaama ana sharafaha iyo ogolaada in aan dusha idinka maamulo
dadkuna reer miyi bay ahaayeen waa iska ogolaaday waliba magaalooyinka carab baa deganaa oo maaragtay dhankiisa ahaa adigoo alxaasil ninka isaga markii ay xoogagii reer Yurub ku soo bateen badii xiriir bay la yeesheen ciddii u horreysay xiriirka wanaagsan la yeelatay Ingiriisku ahaa ciddii labaad waxay ahayd Jarmalka ciddii saddexaad Talyaanigu ahaa oo goor dambe yimid 1885 bilowgeedii iyo Talyaanigu wuxuu ka codsaday in uu ku soo wareejiyo degmooyinkan koonfurta ah waa uu ka diiday wuxuu yiri diidmada iyada ihaana bal lagu sameeyay marka waa inaan kugu soo duulaa jasiiradii marka iyada ma nooleen Sayid Saciid wiilkiisii Barqash baa noolaa Ingiriiska kala dhex galay oo u dalaalay yiri ogolow lacag inta la eegna ka qaado waayuu yiri waxa jirtay xuduudda Soomaaliya oo dheer sahamo fara badan baa ku socday sahamadaas waxaan ka xuseynaa qaar ka mid ah si aan u ogaano xoogga ay lahaayeen sahamadu كونيو سيدات بقول يا فرتين سدحدي كابتن روبرت مورلي ayaa wuxuu soo boqday Djibouti dhulka Djibouti ayuu ku lugayay Roch Araiko 1839 iyo isaguna Djibouti soo gaaray ilaa Shaw socday Lieutenant WC Barker 1840 xeebta badda cadan buu ku lugayay Lieutenant W Christopher 1843 buu isagana badweynta India xeebteeda raaco ku lugayay Lieutenant CJ Crutenden adigu xeebta badda cadmeed buu oo dhulka abu ku lugayay Charles Julian 1848 muddo sanad buu wuxuu la joogay boqortooyadii Begediga buug weyn oo taqriiban 1000 safxadoodana uu ka qoray Lieutenant Richard F Borton berberu ka soo degay ilaa Harar ayuu ku lugayay John H Spike 1863 sidoo kaleento Count Borro oo Talyaaniga 1880 galbeedka Soomaaliya ku lugayay Corp oo Jarmala 1885 wabiga Jubba uu raacay ilaa isagoo doonayay meesha uu ka soo bilowdo inuu gaaro nimankaas iyo niman kale oo fara badan sahamay ahaayeen waxay raadinayeen meelaha ay abaaranayeen meelaha dadku ku badan yahay meelaha biyaha ka bilowdaan ganacsiga dadka noloshooda hadii alla kuuronya waxyaabaha khilaafaadka ay dadka isku hayaan waxyaabaha heshiiska ku yihiin taariikhaha dhow ay leeyihiin waxaasay markoodii hore xiiseynayeen dhibaatooyin badan bay la kulmeen runtii waxba hadda si gelimayno adigu waxa dhacday 1865 ilaa 75 kanaal Suez baa la qoday oo la furay kanaalka isaga wuxuu soo dhaweeyay isu socodkii badweynta India iyo doonyihii ka imaanayay Yurubta galbeed doonyaha Yurubta galbeed ka imaada Koonfur Afrika ka soo jiroon jireen Columbus magaalada Sri Lanka iyo caasimadda iyo London intaanan kanaalka la furin 18,000 oo kiiloomitir buu markabku soconayay 18,000 kanaalka markii la furayna 7,000 keliya noqday macnaha wax kala bar ka yar bay noqotay taa iyada waxay kor u qaaday xiisihii deegaanka iyaga loo qabay waayo maraakiibtii oo dhan baa waxay noqdeen kuwa wadadeennii soo mara arrinta iyada xoogagii reer Yurub waa isku qabsadeen waxyaabaha keenay fadhigii Belgium ee dhacay 1800 1879 taasay ahayd
dabadeedna fadhigii Berlin 1885 fadhiyadaas waxay ahaayeen waxa lagu qaybsanayay awoodii dhulalkan looga talin lahaa dhulalka la qaybsanayay dhulkeena ka mid noqday nasiib darro saddex xoog oo shisheeya Faransiiskii Djibouti buu qaatay Ingiriiskiina waqooyiga koonfurtana Talyaaniga waxa inta weheliyay boqortooyada Itoobiya iyadana damac kaga jiray dalka galbeedkii bay ka soo sikatay iyadoo xaaladda lagu sugan yahay ayaa qarnigii 19aad dhamaaday waxa bilowmay qarnigii 20aad qarnigaas marka Soomaalidu waxay sameeyeen iska caabin fara badan baa dhacday oo xoogagan damaca wada oo gumaysiga in laga hortago ka hortagii isaga ahaa taariikhda waxay xustaa qabaa'ilka biyamaal dhaqdhaqaaqoodii waxay kaloo taariikhda xustaa kismaayo kacdoon ka dhacay kacdoomada markii la isku daray kii u weynaa wuxuu ahaa kii daraawiishta 20 sano socday ka isaga markii dayuurada loo adeegsaday aakhirkii waa la jabiyay 1902 markii la jabiyay halgankii Soomaalidu ay ku diidanayeen xoogagan shisheeyaha buuggii laga qoray sayidka Damaad Mullah ninka qoray waa ninkii jabiyay wuxuu sheegayaa runtii in sayidka iyo ciidamadii daraawiishta ay ahaayeen dad wadaniyiina oo dalkooda u diidana in la gumaysto sharafna qofka waxa ugu filan wuxuu ictiraafo ninkii ka soo horjeeday markay taa dhamaatay oo la wiiqay xoogii weynaa ee daraawiishta 1900 waxaa jiray 1874 iyadoo hayaamadii socdaan iyagoo qabaa'ilkii islaynayaan iyagoo meel walba fidna taagan tahay magaalada Cadan markay camirantay baa waxa dhacday dekadeedii kharash badan baa ka soo gelay marka reerkii meesha ka xigay reeraha kale hanti badan buu yeeshay halka reerihii gudaha ku jiray wali ay geeleeyeen sabab waxa marka dhacay khilaaf conflict xoog badan taariikhda waxaan u xusayaa waxay inoo bidhaaminaysaa xaalad qurux badan oo gabi ahaan Soomaalidu ay ku sugnaayeen heshiiskii la heshiisiinayay labadii reer warantidan wax naga siiya walaalihiin baanahay iyo maya dagaal baa ka dhacay dagaalkii isaga ahaa muddo socday fadhi kasto la isugu yimaado waa la heshiisiin waay gabay dal dhameeyo la yiraahdo ayaa nin odaya oo deegaankaas u dhashay ka tiriyay dhacdadaas gabaygaas waxa yaab leh ninkaas Soomaaliya oo dhan buu tilmaamaya tusinaya xaaladda ay ku sugnaayeen waa 1847 mirihii gabayga waxa kamid ahaa Nuur Maxamed waa tuu isbuulay bariicalowgiye bixin kama lisaan qaalmihii baalcadka ahaaye biyaha Yuusuf iyo Aadan woo kala baqayaaye barbaar jeedal sida taa ka haray labadii beeloode burcadii raguuda iyo xiis xeebtii buu ku socdaa burcadii raguuda iyo xiis waa bannaan tahay batar kama tumaan muusayaal barandihii meydhe laas qoray boqolkii magalo badankii reer suure meel walba waa la isku leynaya laas qoray boqolkii magalo badankii reer suure boosaaso iyo eelna waa laga baroortaaye majarteen isbahardaadintii kala bannaan qaadiye butiyaalo nimankii fadhiyay waa ka baxayeene baxsow keenadiid wuxuu u kacay beled shisheeyaade hobyo ugama baaqeen kuwii baha u weynaaye biyamaal baraawiya fadhiya webiga baaciisa iyana buudi dabadeed ma cunin buriya iidaane bidoodkii kismaayoodna wayswada bogdooxeene boon iyo xirsina haatan dhiga bilic wanaagiya waa laba reer oo walaal oo hawdega boon iyo xirsina haatan dhiga bilic wanaagiya bulshadii garaad faarax iyo bariba naafooye barkad iyo guryihii baharsame belelka qiiqowye boos cali iyo reer goradna wayswada birdhiigeene rawax maalintii lagu bulmay badan coloobeene
buuhoodle laga waa waxay beri ku haysteene reer sugulle goodiga banku baalcadkii dhigaye waa beeyo habar yoonistii buu ahawaalayde waa taa laftoodii ballaqan baydna loo qodine meydkoodii lafihii dibadda yaalleen arab wuxuu la balawaasayaa baydadii shalaye dadka niman baduugaa mar noqon buugga kuma yaalle mikaahiilku boogaa ku yaal waa bukaaweliye baaruudda la ysaga cayimay beerka iyo laabta boqorrada la wada laayay iyo bilista ooyeysa waa run begadiga 300 oo isdhalay baa la dilay majarteenka boqor cismaan awoowihiis baa la dilay habar gidir nin suldaanu ahaa baa la dilay boqorrada la wada laayay iyo bilista ooyeysa baaruudda la ysaga cayimay beerka iyo laabta dadka niman baduugaa mar noqon buugga kuma yaalle gabaygu waa dheer yahay intaa waxaan idinkugu soo qaadayaa inaan xaaladii Soomaalida ay ku sugnaayeen qarnigu markuu dhamaanayay kan kalena bilaabanayay aan idin soo bandhigo qarnigii markuu nagu bilowmay iyagoo xooga gaasimaadeen ayaa waxaa dhacay iska caabintii ugu xooga weyneed waxaanu niri waa tii daraawiishtahay iyadiina 20 sanay halgankeedii ku soo afjarmay sayidkii wasagii u kacay iimay markuu meesha ka baxay dagaalo gogoos ah bay Soomaalidu wadeen waxa kamid ahaa dagaal boqor Cismaan Talyaanigii waraaq buu qoray hubka dhig baa la yiri oo isdhiib wuxuu shiriyay ragiisii ma isdhiibnaa buu yiri mase waanu diriraa waa la shiray bil bay waxay fadhiyeen meesha noobir la yiraahdo bisha iyada ah waxa laga tashanaya arintaas nin la yiraahdo Faratol oo kamid ahaa dhalinyaradii fadhiga baa isagana gabay intuu istaagay faras uu lahaa oo xubbi la yiraahdo buu ku halqabsaday wuxuu yiri isagoo faraskiisii la hadlaya tani ximirkii dayreed waxaan xagada ku daajay xanxantintii waxaan fardaha kaaga xira dhaafshay macna fiidkii marka fardaha la xireeyo adi dib baan ku dhigi jiray xanxantintii waxaan fardaha kaaga xira dhaafshay waxaan qoofalka kuugu xiray xarabad weeyaan xubbiyay rag la isugu xotomi laba xiniyoode nin xishoonaya waa kanoo xiray bilaawaha ninkan xuural cayn doonahayn xawda how boqo adiga way qurux badan buu tiriyay inaynaan xamaaliin gelayn annagu xaadiriin baynu nahay xumiya khayraade inaynaan xamaaliin gelayn gaala hays culus go'aankaas la qaatay 2 sano dagaalkoodii socday boqorkiina waa la qabtay magaalooyinkiina madaafiic baa lagala dhacay waa la dudumiyay waxa jiray isaguna dagaalkii Sheekh Xasan Barsane isaguna dagaalkiisu isagoo aan hana qaadin baa sheekhi la qabtay xabsiga lagu dilay waxa jiray isaguna Umar Samatar dagaalkiisi isaguna 2 sano socday waa la caburiyay waxa dhanka waqooyiga ka kacay 3 nin oo 3 halgan oo kala duwan waday nin wuxuu ahaa Xaaji Bashiir Sheekh Bashiir isaguna dagaal halgankii iyo dhaqdhaqaaqii u bilaabay isagoo aan curan baa la caburiyay oo waa dhintay waa la dilay nin wuxuu ahaa Omar ilaahay oo naxariisto wuxuu yeelay isagoo nin dhalin yara buu wuxuu raadiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska taarkeedii wuu helay taarkii buu diray wuxuu qoray hayaay 3 hayaay taarkii baa wuxuu ku dhacay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska taarkii baa la qaaday hayaay yaa yaqaan xagee ka yimid Hargeysa okay af Soomaali wey yaa Soomaaliyo magaalada jooga Caabi Faarax odayl kaligiis baa magaalada wax Soomaaliya ka jooga Cabdiraxmaan Caabi Faarax iyo niman waaweyn oo waxay ahaayeen siyaasadda Soomaalida door weyn ku lahaa ninna United Nations ku fadhii jiray ninna BBC da raggi ka hadli jiray 60aadkii iyo 70aadkii bilowgeedii waa aabahood wey Caabi Faarax baa loo yeeray waxa la yiri inoo turjun hayaay wuxuu yiri iyadoo meel mugdiya aad hurudid habeen ay tahay
هاو دير بدن روب ضرور أدون كحري أدنى أدهردو هاود كوا مجدي هبين كوا مجدي ضرور توا مجدي لبا حلقة بودية ده كوجود دقي أو كلاب بودي ننده وايي وريقا دقا ومصطلح ديروي terminology ديروي باوحو دها هياي إنجليزي وحي فاهمين ماشان وحولسين إلى إجراء برلمانكي وحو كو خصبنا هذا إنه delegation وصادره هرجيسا عمر مركز دقدقة غصب بلابي وحو أفوكاتو النقدي الصومالي أردن إنه واحد ودنك وعلى مسافرية عدم بالجيء دقدقة قسمو سندمين هوشاس أو دقال نبضة وكدونا يحقيسي إنه كسر دعسده وتيحاج بشير كدوان بو قالي ننوحو أها ننكس الدحاد وغويقا ككعي إلهي هو ذن حريستو رقا نترينينو أو آذن أحمد أفقى الله استغنا نين أفتحنا أبوها أفكو فرتك سومالي دا إنو براروجيو ومن نماذو وحي تهي هدي ألا كورو سومالي نماذو وحي تهي دنجي آذن وحي ودراد وقدام بيسان دنجي آذن انتو ودراد وقدام بيسان وحي أتكود عفتين قلبي وسو إسكامة داي دب محايدين ديغا هيو هوري إدين ديدي مرون ما تكود دياتان خلقي اللي بنت الدوناي مرون ما تكود دياتان خلقي اللي بنت الدوناي كاسنا وحوها أو آذن أفقى الله دقدقاق الصومالي دو مركا لباتنات كي يو صدنات كي انتبوا وسو سعودي لكن ولا مقونين أي مركز دقال كي لباد يدون كاردعي تاريخ يابلي باهل كان كحسم وهدان صومالي نهي الدنيا دا والا اسبيل الغيستا وحلا اسكبل الغيستانا وحا وقود دران تاريخ الله ده markii adoo soo jeeda indhahaaga la mariyo oo lagu inkiro waa daciifnimo weey dagaalkii labaad ee adduunka meeshii ugu horeysay oo ka bilowday Soomaaliya ninkii horeeyo bilaabayna nin Soomaaliyo ah faaladeeda markaan galayna hadda waqtiga ku lumin mayno dagaalkii labaad ka gudihiisii baa waxa Soomaali u kacay dhaqdhaqaaqii leego gobonimo doonka ahaa oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee horseedayeen isaguna waxaan ka xusayaa kaliya maxamed saalax ladane 96 sano jira waa nool yahay ragii laf dhabarta u ahaa leegada weyn wuxuu igu yiri adeer 5 nin oo kaliya baa wax qori kara nugu jiray markii halgankan la bilaabay 5 nin oo kaliya hebel shantii waa itiri laakiin dadka qalbigooda wanaagsana fidrada wanaagsan وأقوم بيلها وحي حماء يوحي السماء بيكلا جرانيس لكن دد PhD هيست أو كوميالدن بعد ما أنت تهين بوي يا كوميال بال بقولالكم لكن قلبي جيب أبوكا وحبل ما قبل كلام دغدغة السجا مدة 8 سنة بوجوانيما كوجارسية الصومالية 8 سنة بوجوانيما كوجارسية wiilkii caadan ka soo gabiyay maalintii caalanka la suray wuxuu yiri allow yaa darwiishkii fariin dabacsan gaarsiiya allow damaashaad iyo farxad leh allow yaa damaashaad farxad leh kala duleedaan allow yaa dalkaagii ku dhaha dawladnimo qaaday fardaha yaa dirkii dhow dimir doona faraceeda الله يا درمان فراتقان دوغا وهنسيا الله يا دوليديدا تلاحقو دماشادا إن طريقادي توسن تهون ديهيني سو غاري oo dabku shiday rakale dogobyo si saaray الله يا أفلم الدالية داعد وشدا داحو كدا كيري حقي naga dahsoonay hadda wadadku u hiiliyay iyo dooga soo baxay الله يا dacluustiya qabriga dib uga soo saaray 9 sano dawlad rayida ayaa Soomaali u dhisnay 3 prime minister ayaa isbedelay mid walba taariikh culus ayuu ka tagay nin kamida waaba idin la nool yahay labadii kalena Allah u naxariisto waa ay dhinteen ciidamadii baa dalkii Soomaaliya la wareegay
markay ciidamada la wareegeen iyadana taariikh culus baa halka ku dheehan aakhirkiina waxaanu u kala baxnay waa la ogaa aynu isqaybino waxaanu ku heshiinay gurigii aanu deganayn inaanu dudumino aqli xumada taa ka sii daran waxay ahayd iyadoo caruurihii iyo xaasaskii iyo waayeelkii guriga ay dhex fadhiyaan baanu ku dudumin waxay ahayd at least in caruuraha iyo xaaska dibadda loo saaro kadib aan dudumina xataa haddii lagu heshiyo in la dudumin laakiin caruurtii iyo xaasaskii iyo waayeelkii oo guriga dhex fadhiya yaanu ku dudumin annaga unbuu marka dhibkiina gaaray cidna la darisa wax dhib gaaray male cid ka shaysana dhibaan gaarsiinna ma jirto annaga unbuu dhibkii ina gaaray haddaba taariikhda quruxda badan oo runtii cinwaan kasta u baahan in ayaama laga hadlo iyay ummaddu leedahay intaasaan ku soo gabagabaynayaa wabillaahi tawfiiq صندوق محل الشيكة صندوق أحوال المشيكة بس إن شاء الله وإذن لجوجيا مدة تاريخها أن كشكينا يو صوت المري وأن كوها كان دونا محاضرات يفرديو وأن نوقف أنا يا هدو على إدمه مركزا بالتفصيل وجود جلينا تاريخ كستا هديت هاي تي لجدي هديت هاي تي دولة الرئيس كهد هديت هاي تي دراويشتي محمد عبد الله حسن هديت هاي تي قيبسي الصومالية هديت هاي حتى قاببك أن كبر بري يعقل حمادني يضغط يدو إن كستو أي سعود تولي أو أي تاريخ نقل مثلا بلو جدي إنه حل يسكير هذا أدبي وناك سنتها وبالله التوفيق.